السلام عليكم إنا لله وإنا إليه راجعون gabadhan dhimatay allah u naxariistay hibo waa garanaysaa gabadha youtuberada ahayd oo fanaanadna ahayd oo muqdisho ku noolayd oo hibo falaq neenaasteeda ay ahayd subxaanallah ilaah u naxariisto inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun waa la wada dhimanayaa aadan uga naxay markaan maqlay walaalayaalow iska cafiya hala cafiya gabadhaas gabadh fanaanna way ahayd youtuberadna way ahayd ilmo inay haysatana waan u malaynayaa caruur inay lahayd ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo dadkeedii waalidkeedii ehelkeedii qaraabadeedii owlaadeedii qof walba wuu dhimanayaa annaga intay nooleed ciddii wax ka sheegtana ilaahu naga cafi ilaahu naga wada cafi qof walba saasuu u dhimanayaa qof walba waa inuu ku tashtaa inuu dhimanayo xanta iyo waxyaabahan la iska daayaa iyo dadka wax laga sheegayo inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun aadan uga naxay ilaahay ha u naxariisto ilaah u naxariiso ilaah qabriga u waasici ilaah su-aalaha u fududee wallaahi dadkan isqaaqaawinta iyo waxyaabahan ma fiicno gabdhow dadaala gabdho iyo wiilalba ilaahay laga cabsado waa la dhimanayaa hala dadaalo hala iska daayo isqaaqaawinta iyo heesaha iyo waxyaabahaas gabadhaasna qofkii heesaheedii waxyaabahaas yaan la daawan intaas ugu gargaara asxaan ugu sameeya wixii wanaag ku jira daawada laakiin waxyaabo hees iyo waxaas qofka hadduu mar dhinto waa in la iska daayaa heesihiisi hore u heesi jira ama waxyaabo kale uu sameyn jira inaan la sheegin ama la daawanin intaasaa qofka walaalkaa ku saacideyn kartaa maadaama waxbana loo qaban karin uu tagaybo ilaahay ha u fududeeyo su-aalaha ilaahay ha u naxariisto gabadha muddo way xanuunsaneed ilaa 2 biloodaa la dhahay saakay ku dhimatay muqdisho allah u naxariisto aniga waa daawan jira gabadha waan ka naxay aada uga naxay aqoon gaara hadda uma lahayn meeshaas youtube-kan ka arki jiray laakiin qofka youtube-ka markaa ka daawan jirtay iyo qof aadan weli arkin ama maqlin isma lahan qofaa taqaanidoo kale uu kula yahay marka aadan uga naxay sida qofaan aqaani caadi aan u aqaanoo kale ila ahayd aadan uga naxay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaah u naxariisto ilaah u fududeeya qabriga ilaah su-aalaha u fududeeya ilaah qabriga u waasiciyo gabar iska dhalinyaraa iska kolleyba ilmahey korsanaysa sa ila tahay ilaahay ha u naxariisto ilmaheediina ilaahay ayada gadaasheed dad wanaagsan ha ka dhigo ehelkeedii samri iimaan allah ka siiyo aadan gabadha uga naxay ilaah u naxariisto qof walba wanaag waa inuu ka fakaraa adduunyada inuu kaga tago qof walba wanaag waa inuu ka fakaraa inuu sameeyo wax walbo aad samaysid oo xumaana ama isqaawisay ama heesaha iyo waxyaabahan fisqi hataa aad samaysid oo youtube iyo waxyaabahan iyo heesaha iyo waxa aad ka tagtay youtube-ka laftirkiisa wanaag waa inaad wax lagaa faa-iidayo waa inaad soo gelisaa wanaag wax ajir kaaga soconaya beri markaa dhimatay waa inaad soo gelisaa wax walba inaad iska soo gelisid ma fiicna iyo waxaana lacag ku helaysaa iska soo geli iyo adoo dad ku dhegan iyo waxyaabahan qof inaad iscaynaysaan iyo aflagaada iyo ma fiicna laga fakaro waxaan lacagta aa ku helaysid iyo waxaan waa laga tagayaa waa adduunyo aakhiradaada ha laga fakara aakhirada ka fakara dhalinyaroy fakara aakhirada ka fakara maanta ha ka fakarina ee biro aakhiro waxaa shaqaysanaysid ka fakar adduunyadaadan adoo shaqaysanaysid aakhiradaadana shaqayso wanaagga ha lagu fakaro hala dadaalo allahu akbar inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun ilaah u naxariista gabadhaas walaasheena intii aragta fideogaana usoo duceeyay inuu ilaahay u fududeeyo ilaahay qabriga u waasiciyo ilaahay su-aalaha u fududeeyo ilaah u naxariiso intii islaan ah intii dambi gashana allow ka cafi allow anagana naga cafi aakhirada ha laga wada fakaro walaalayaalo aakhirada ka fakara adduunyada iska daaya adduunyadiina shaqaysta laakiin aakhirada ugu muhiimsan aakhiro beri maanta beriyaa ka daranso ma ogadiin beri waa ina si weyn looga fakaraa maxaa la tagi doontaa aakhira waxaa ku hor yaala adduunyo kaliya yaa lagu mashquulin aakhirada ha laga fakaro intaa nooshahay nafta daqiiqada lagaaga qaadi karaa waa inaad ka fakartaa beri maxaa ku yaala meel marka wax wanaagsan ka shaqeeya wax wanaagsan soo dhiga oo ajarkaaga socon kara beri markaa dhimatid ajar aa ka helayso wanaag ah
marka inaa lilah waa inaa ilaahay raajicuun aada uga naxa gabadhan usoo duceeyay inuu ilaahay u naxariisto u duceeye insha allah khayra idiin dhaafay